السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن لما صاحبada ku xiran janaalka waa qaybtii sagaalaad qisada wiilkii goobay wadada guusha. qaybtii sideed waxay noo joogtay waxaad dareemi doontaa cibaadada macaankeeda markaad ikhlaas leedahay taasina waa ku xirnaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. wiilkii yara ayaa weydiiyay maxaa ku xiga, xaakimka ayaa ku jawaabay waxaa ku xiga oofinta. Ilaahay wuxuu quraankiisa ku sheegay aayado badan oo kaga hadlayo oofinta. waxa uu yiri oofiya balanta waa la isweydiin doonaaye. wuxuu hadana yiri Allah subhanahu wa ta'ala dadka Ilaahay rumeeyay oofiya balamaha. xadiis Abdullah ibn Umar ibn Abbas nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afar arrimood ruuxa laga helo wuxuu noqonayaa munaafiq aalisa. ninka laga helo mid kamidana waxa ku sugan calaamad kamid ah calaamadaha munaafiqiinta. waa marka la aamino oo qiyaameeyo, marka uu sheekeynayo oo been sheego, marka uu balan galo oo uu burburiyo, marka uu doodayo oo been ku dhaarto. kadibna xaakimka ayaa wiilkii yara fiiriyay oo ku yiri hadii uu ruux balan kula galo oo hadana balantii ka soo bixi waayo maxaad dareemaysaa? wiilkii yara ayaa ku jawaabay waan caroonaya cadho aad u badan. xaakimkii ayaa yiri ma suuragelaysaa inaad maalin dambe ku kalsoonaato? wuxuu ku jawaabay maya. xaakimkii ayaa yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala sareeye waa sidoo kale. waxaa la arkaa inaad tahay mid mu'mina oo muqlisa laakiin aan oofin balanta Ilaahay aad la gasho. balanta dadka aad la gashona oofin la'aanta balantuna wax kasta waad ku waayeysaa oo ah wixii hore oo dhan, iimaankii, daacadii iyo ikhlaaskii. oofin la'aanta balantu waa dambi laakiin keeni mayso inaad ku gaalowdo. oofinta la oofiyo balamaha waxay kamid tahay daacaduna iimaanka ayay kamid tahay. sida aad aragtay weliyo waxaan soo sheegay oo dhani waa aasaaska dariiqa sareynta. dadku sababta ay la imaadaan waxayna iloobaan kii sababta lahaa taasoo halaagta qofka. laakiin marka aad la timaado sababta adiga oo Ilaahay talada saaranaya taasi ayaa ku guuleysanaysa. marka ayuu xaakimkii wiilkii yara fiiriyay oo ku yiri ilaa imika maxaad baratay? wiilkii yara ayaa u sheegay wixii uu xaakimkii baray oo dhan oo ahaa iimaanka, daacada, ikhlaaska, oofinta. xaakimkii wuxuu yiri wiilkii yara fiiriyay isagoo dhal cadeynaya oo ku yiri wax fara badan baad baratay wiilyahow. wiilkii yara ayaa yiri adiga ayaan ka bartay. xaakimkii ayaa ugu jawaabay maya kada anigu waxaan ahay oo kaliya sabab kamida sababihii aad guusha ku gaaraysay. Ilaahay baana ii ka saqiray si aan ku caawiyo, adiguna sidoo kale dad fara badan baad caawin doontaa. wiilkii yara balan ayaan ku qaadayaa inaan sidaas sameyn doono. xaakimkii ayaa yiri balan ha qaadin hadii aanad karin inaad oofiso. balantana oofi waqtigeeda saxda ah. wiilkii yara ayaa yiri kaasi ma qodobkii u dambeeyay? xaakimkii ayaa ku jawaabay maya waxaa haray arrimo kale sida Ilaahay oo aad talada saarato. tala saarsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawakkal ala Allah. wiilkii yara maxay tahay tala saarsida Ilaahay? wuxuu ku jawaabay xaakimkii waxa waajib ah inaad Ilaahay talada saarato adiga oo asbaabtana la iimaanaya. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri hadii aad tala goosato Ilaahay talada saaro, Ilaahay wuu jecel yahay dadka talada saartay. macnaheedu waxa weeyaan inaad go'aanka markaad qaadato aad Ilaahay talada saarato kadibna ku dhaqaaqdo. si aad hadaba go'aan u qaadato oo aad Ilaahayna talada u saarato waa inaad niyootaa. hadaba wiilyahow waxa muhiim ah inaad taqaanid macnaha ay niyadu ku fadhido. niyadu waa meesha afkaarta ay ka dhalato, niyaduna waa ta keenta damiirka, damiirkuna waa ka keena dareenka iyo hab dhaqanka. kadib ayay caalamka dibadiisa u soo baxdaa. maxaa yeelay Ilaahay wuxuu eegayaa niyada ku jirta qulubta. sidaa daraadeed waxa waajib ah inaad camal kasta oo aad sameynayso inaad
niyooto ilaahayna talada saarato oo aad niyooto iimaan buuxa oo aad niyooto daacada Rabbi oo aad niyooto qabsashada asbaabta kadibna aad bilowdo dariiqa guusha. Niyadda ayaa shay walba ka horeysa. Xaakimkii ayaa wiilkii yaraa fiiriyay oo ku yidhi, ma niyootay? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, haa, waan niyooday. Xaakimkii ayaa weydiiyey, maxaad niyootay? Wiilkii yaraa, waxaan niyooday rumaynta Ilaahay, waxaan niyooday ikhlaas, waxaan niyooday daacada Rabbi, waxaan niyooday oofinta wixii aan Ilaahay iyo dadkaba kula ballamay, waxaan niyooday tala saarashada Ilaahay. Xaakimkii ayaa ku jawaabay, iminka adigu waxaad tahay mid aad u wanaagsan, laakiin weli waxbaa kuu haray. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, oo maxaa ii haray? Intaa ha inoo joogto qaybtii 9aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii muuqaalku qanciyana like, share, ha ka iloobin lana wadaag saaxiibadaada. Mahadsanidin.